Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qiimaha badan isku soo laabasho wacan. Maalmahan waan yara xanuunsanaa hergab ayaa i helay marka wax cod ah waan soo duubi waayey. Hadda waan isku soo laabana waan fiicanahay alxamdulillaah. Halkii ayaan kasii anbaqaadaynaa hawsheenii. Waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa musalsalka qof oo lunsaday canshaqa. Waxaan kaloo isku dayaynaa musalsalka walaalaha inaan isagana soo gudbino. Qof oo lunsaday canshaqa ilaa 7 xalqadood u dambeysay ayaan muuqaalkani kusoo koobaynaa sharaxaadooda. Markii u dambeysana waxay inoo joogtay Firaad Isa iyo kulmeyn misana isku caroodeen kala tageen. Halkii ayaan kasii anbaqaadaynaa. Firaad iyo waliba baaqi iyo wiilkii Finaayig ah gurigii ayay ku noqdeen. Finaayigna wuxuu mar walba ku dadaalayay sidoo markaasi ku xiriirin lahaa gabadhii yareed ee Saafi ahayd. Qoyskii dhammaan way ogaadeen inay Saayi nooshahay. Ashwani ayaa farka tuuraysa waxaana leedahay Saayi way nooleed anagana intaanoo dhan ayaan ka murugisnayn. Laakiinse aniga waligay ma cafin doono qaladkii ay gashay sidii gurigan uga tagtay wiilkii yaraa Finaayig inuu darteedii u dhintay. Waxaasoo dhan ayaan uga caraysnay bay leedahay mana cafin doono mana ogolaanay inay gurigan ku soo noqoto qof gurigan ka mid ahaan oo xiriiriyo. Haddaba iyadoo xanaaq loo muujinayo ayaa baaqina isku dayaysay inay dadka fahamsiisay sida ay Saayi cunuga yar Finaayig u caawisay. Laakiin dheg jalaq looma siinayo. Ashwani ayaa aad u caroonayso. Ashwani waxay kale samaynaysaa baaqi ayay ku dhiirigelinaysaa in markaasi xiriirka iiday Firaad ay sii adkayso. Waxaana leedahay iyadoo ka cabsi qabta in Saayi iyo Firaad isku soo noqdaan ay si dadban u dareensiinaysaa baaqina way fahmaysaa. Waxaana leedahay waan fahansanahay waxaad ka wadid maadaama Saayi inay nooshahay aan ogaanay. Xoogaa waxaad ka baqaysaa Firaad iyo Saayi inay isku soo noqdaan soo ma ahan. Waan dareensanahay bay leedahay waxaad ka hadlaysid laakiin waxba ha ka baqan. Aniga iyo Firaad cidnana ma soo dhexgalayso ayay dhahaysaa baaqi. Haddaba waxaa dhacaysa wiilkii yaraa iyo Finaayig ahaa telefoonkii ayaa laga qaadayaa. Bafani waxay go'aansanaysaa in Finaayig uusan wacin telefoonkii Saayi iyo gabadheedaba. Marka waxay doonaysaa lambarkii Saafi inay meesha ka tirto. Wiilkii Finaayig ahaana telefoonkiisa in la siiyo ayuu rabaa. Bafani ayuu soo dabagalayaa ilaa markii dambe uu jaranjarada ka soo dhaco. Markuu jaranjaradii ka soo dhacan isbitaal baa la geenayaa. Bafani waxay bilaabaysaa inay eediyo dhan waxaasoo dhan dusha u saariso Saayi. Laakiin Firaad iyada ayuu ku qaylinaya. Waxaana dhahayaa wax walba adiga u sabab ah. Wiilkayga Finaayig xaaladuu ku sugan yahay adiga u sabab ah. Dhaqaatiir fiican ayuu raadinayaa. Bafani hadaladiisii way ka kululaatay oo way ka xumaatay. Laakiin baaqi baa dejinayso. Waxaana leedahay qalad ha u fahmin waa aabbo. Marka wuu walwalay oo wax kale tama jiraan. Ha ku xumaanin hadaladiisa ayay dhahaysaa. Bafani ayay dejisay. Wiilkii wuxuu dhahayaa hawaanba waxa i daaweynaysa kaliya Saayi. Waxaana doonaya Saayi iyo Saafi inay meesha imaadaan si markaasi u la kulmo. Dhinaca kale Jagdab ayaa gabadhii yareed ee Saafi ahayd soo wareejinayo si uu u sasabo. Wuxuu tusayaa geedkii hadda kahor ee ku qoraysa qoraaladii iyo qoraalla jawaabo isaga u sameeyay. Waxyaabo badan buu soo tusaya niyaddu u soo dhisaya. Iyadoo faraxsan ayuu gurigii ku soo celinaya. Saayi baa la hadlayso waxay leedahay gabadheedii kalaaxa way u digaysaa. Usha mooshin waxay leedahay Jagdab muxuu qalad sameeyay kaliya gabadhaada unbuu waqti yar la qaatay wanaageeda ayuuna jecel yahay. Jagdab wuxuu dhahayaa aniga noloshaada ma soo galayo kaliya wanaagiina uban jeclaa. Xoogaa hadal wanaagsan buu kula hadlaya. Kadibna isagoo ilintiisa iyo murugadiisii qarsanaya ayuu goobtii ka tegaya. Haddaba waxaa dhacayso in Finaayig uu dalbaday Saayi kaliya inay daaweyso laakiin Firaad waa diidaya. Qoyska dhammaan waa diidayaan. Baaqi waxay isku dayaysaa Firaad inay wax fahamsiiso misana u sheegto daawada Saayi inay aad u fiican tahay. Daawadii iyo kareemkii iyo saliidii ee u marin jirtay inuu wiilka in badan uu ku fiicnaaday horay. Laakiin Firaad wuu caraysay. Wuxuu dhahay Saayi oo dhan inayna soo dhex gasho ma doonayo. Daawadeeda ma rabi. Caawinteeda ma rabi. Wax iyada dhankeeda ku saabsan oo dhan ma doonayo. Magaceeda xitaa inaan maqla ma rabi. Ha igu soo hadal qaadin ayuu dhahayaa. Dhaqaatiir fiican ayuu keenay. Laakiin dhaqaatiirtii wiilkii way daaweyn waayeen oo daawadii kuma qanacsano. Daawadii ma qaadanayo. Dhaqaatiirtii waxay dhahayaan wiilkan yar dhakhtarka uu rabo ha loo sameeyo oo ha loo keeno sida uu rabo ha loo yeelo haddii aad doonaysan inuu si dhaqso leh ku caafimaado.
Firaad waa murugaysan, cayl baa qabanaya. Gabadhii Baaqi ahayd dhibkeedii waxay u sheeganaysaa Ashwani. Ashwani waxay dhahaysaa waan ku dareensanahay, laakiin Firaad waan ku raacsanahay. Ma doonayo inaan garab weydiisano Sai, mana rabno Sai inaan mar kaleeto waji ka waji u kulanno ama nagu soo noqoto ama ay wiilkan xitaa si dhakhtarnimo xitaa inay u daaweyso marnaba raalli kama nihin bay dhahaysaa. Marka iska iloo gabar yahay in Sai aad garab weydiisato. Baaqi waxay ku adkaysanaysaa in Sai ay garab weydiisato. Qoyskii way ka qarinaysaa, intay dhoomato bay la kulmaysaa Sai, tuuladeedii ugu tagaysaa. Xilli Sai idana safar isku diyaarinaysay, waxay rabtay idii gabadheedaba inay halkan isaga tagaan, Shimlana ay aadaan. Waxaana Usha u sheegtay in Shimla shaqo laga soo dalbaday Sai ahaan, halkaasna ay aadayso meesha ay ka shaqaysanayso, halkan oo dhan ay ka tegayso. Waxayna tiri haddii aan halkan ka tago markaa nolol fiican oo markaasi nabad oo farxad oo jawi wacan baan dhex galaya. Firaad ba waan iska iloobaynaa sababtoo inta muddo ayaan ku nooleen, laakiin Firaad wuu noogu yimid. Hadeerna noloshiisii iyo xusuustiisii iyo buuqiisii iyo dagaalkiisiiba dib u bilowdeen Soomaan. Hadda inta waan uga tegaynaa Shimla ayaan nolol cusub ku bilaabanayna aniga iyo gabadheydii. Sidaas bay dhahaysaa Sai iyadoo isdiyaarinayso. Ba waxa u imaanayso Baaqi. Baaqi markay u imaato waxay ka baryaysaa in wiilkeedii uu daaweyso. Waxay leedahay dagaalkan iyada inaga dhexeeyay adigii Firaad xiriirkiinii hore, wax walba intaad iska ilowdid ama dhinac dhigtid, wiilkayga Finaayig ii daawayay. Adiga kaliya ayuu kugu qanacsan yahay, adiguu ku dalbaday, fadlan i caawi. Sai waxay dhahaysaa ma ku caawin kari aniga, mana rabi markaasi inaan noloshiinii ku soo noqdo. Dhaqaatiir iga fiican way buuxaan, xitaa lambaradooda waan ku siin karaa, iyaga la xiriir. Baaqi waxay dhahaysaa dhammaan dhaqaatiir fara badan waan la xiriirnay, laakiinse Finaayig adiga kaliya ayuu ku rabaa. Wiilkayga ii badbaadi. Waad ogtahay wiilkayga Finaayig inuusan wax qalada lahayn. Aniga iyo Firaad ayaad noo caraysan tahay, laakiin Finaayig wuxuu kaa helayay ma lahan. Aad bay markaasi u baryaysaa. Markaas ayay Sai waxay leedahay haddii aan aniga ogolaado xitaa yaa ogolaysiinaya Firaad, waayo ma ogolaanayo. Waxay leedahay Firaad waxba igama gelin, waad ii daaweynaysaa wiilkayga. Midda kaleetana ani adiga iyo ranka naga dhexaynaysaa, soo bax aniga ku wadayo. Haddaba ugu dambeyn Sai way ogolaanaysaa. Ninkii Firaad wuxuu sameeyay ayuu garan laayay. Wiilkii daawadii ma qaadanayo, dhakhtar walba ayuu u sameeyay ama u keenay. Ugu dambeyn Baaqi waxay keenaysaa Sai, waji ka waji ayayna ku kulmayaan Sai iyo Ashwani. Markaas ayay isku dayaysaa inay ka ducaysato, laakiin Ashwani way diidaysaa. Waxaana leedahay maya Sai, sanado badan kadib maanta ayaan ku arkaa, laakiinse agteeda wax sharaf ah kuma taalo, mana ku cafin doono qaladaadkii iyo waxyaabihii aad nagu samaysay dhowr sano ka hor. Intana waxaad ka soo doontay wejigaada naga qari. Sai waxay leedahay aniga halkan uma imaan qoys ahaan iyo xiriirkii hore inaan soo celiyo. Halkan waxaan u imaaday waajibkaygii inaan guto, wiilka Finaayigna aan daaweeyo. Firaad waa diidaya. Baaqi ayaa ka hor istaagayso. Waxay leedahay aniga u wacay maadaama Finaayig uu diiday daawadii, Sai kaliya ayuu ku qanacsan yahay. Haddaba ninkii Firaad ahaa waa diidaya. Baaqi ayuu ku qaylinayaa. Markuu ku qayliyay kadibna haddaba Sai waxay ka baryaysaa qoyskii dhammaan iyo Firaadba inay wiilka yar Finaayig ah ay daaweyso, iyadana wax qalada aysan lahayn. Wiilkana inay daaweyso loo ogolaado, laakiin Firaad waa diidaya. Wuxuu dhahayaa wax garaba aan kaaga baahanahay ma lahan, halkan isaga tag. Safarkii aad soo gashana waan ka xumahay. Xoogaa jeeg inuu u saxiixayo badmoodo ayuu siinayaa. Jeegii bay jeexaysaa. Waxayna leedahay wax walba ma ahan inaad lacag ku bedelatid. Aad bay u canaananaysaa. Haddaba waxay leedahay haddii aad diideen inaad markaasi aan wiilkii daaweeyo, qasab ma ahan, mana idin qasbi karee, waan iska tegayaa. Laakiin waxaad ogataan qalad weyn ayaad galaysaan. Way ka tegaysaa Sai iyadoo markaasi dhibsatay hadaladii Ashwani, mana aysan ka filaynin, waana iska tagtay. Gabadheedii Saafi ayay ka haysatay. Markan Usha iyada waxay baskii ay raacayaan, waxaana go'aansanayeen inay tuuladii ku noqdaan oo Shimla xitaa aysan aadin. Sai waxay soo xasuusanaysaa
safarkii hadda kahor isla baskaas isla meeshan oo bas ay ka raacday kadibna wiilkeydii Finaayig ay ku weysay shilkii ay gashay. Arrimahaas bay soo xasuusanaysaan. Baaqi waxay aad u baryaysaa Firaad, waxay leedahay wiilkayga Finaayig saay kaliya ayaa daaweyn karta, madax adeegan iga dhaaf. Soo celisay wuu diidaya. Markan waxaa dhacayso in wiilkii Finaayig ah uu soo kaco, hadalkiisa buu maqlay, wuxuu go'aansaday ama fahmay in saay halkan timid. Wuxuu kasoo dhacaya waa sariirtii, wuxuu isku dayaya inuu soo baxa. Dadkii baa arkayaan, way farxayaan inuu soo kacay, laakiinse haddana waa dhacayaan. Sariirtiisii baa lagu celinaya. Wuxuu dhahaya waan dareensanahay inay saay timid, Saafinatu kolley way timid, inaad ogolaataan inaan la kulmo ayaan doonaya. Firaad wuxuu arkayaa wiilkiisii farxadda ka muuqato, sida uu u jecel yahay Saafi iyo saay inuu arko oo la kulmo, sida uu ugu qanacsan yahay daawada saay. Waxyaabahaas oo dhan buu arkay, isagoo markii hore qorsheynayay inuu dibadda u kaxayo wiilkiisii oo markaasi dibadda uu kusoo daaweeyey. Baaqina kuma qanacsanin arrinkaasi, laakiin go'aankii Firaad ba hadduu yahay way iska ogolaatay iyadoo markani hoosta ka diidan. Ugu dambeyn wuxuu markaasi garwaaqsanayaa inuu qalad galayo Firaad, uuna diidayo daawada saxda ah iyo in saay inay wiilkan daaweyso. Kadib buu ka qoomameynayaa, wuxuu la hadlayaa Baaqi, wuxuu dhahayaa saay inteen ka heli karaa, waxaan doonayay inaan soo celiyo si wiilkaygii uu daaweyso. Madax adeegayga waan dib baan u dhigtay iyo xanaaqii aan u qabay iyada, laakiinse markan waxa ii muhiimsan buu dhahayaa wiilkayga ayaa wax walba ka muhiimsan iyo caafimaadkiisa. Sida awgeed inteen ka heli karaa, waxay u sheegaysaa inay markaasi bas sii raacayso, tuuladiina ay ku noqonayso, inuu durba ka gaaro. Fag buu soo dhahayaa, meeshii basaska laga raacaya ayuu imaanaya, laakiin nasiib xumo wuxuuba ogaanayaa in baskii saay ay saarneyd uu durba baxay. Markaas ayuu gaarigiisii xoog u soo kaxaynaya si uu baskii kaga soo dabagalo. Ugu dambeyn baskii buu soo ciirsanaya, wuu ka daba imaanaya, baskii buu joojinaya, saay ayuu soo dejinaya. Iyadana waxay tiri Saafi uu shaamoosha baska kasoo degina, laakiin way kasoo degeen. Isagii bay ku qaylinaysaa, way la murmaysaa. Waxay leedahay maxaad doonaysaa? Wuxuu dhahaya waxaan doonaya inaan idin celiyo, magaaladii idinku celiyo. Wiilkii ayaa daaweynaysaa. Waxay leedahay marna adigaa diiday, marna adigaa ogolaanay miya? Waxay kaloo la hadlaysaa gabadheedii, waxaana leedahay maxaa idinka soo bixiyay baskii? Ugu dambeyn wuxuu dhahayaa saay madax adeegaadii qayladada dib u dhig, soo bax. Wax walba waxaa ka muhiimsan wiilkayga caafimaadkiisa. Isaga dartiis ayaan markaasi halkaasi u aadaynaa, ood wiilkayga aad u daaweynaysaa. Waxay leedahay hal shuruud baan kugu raacaya, ma doonay xiriirkeenii hore iyo wax walba inaan halkaasi kaga hadalno oo dood aan dhalino oo labadeena aan muranno oo xiriirkeenii hore aan ku muranno. Sheekadaas way dhammaatay, kaliya haddii ruuxan u wada hadlaynaa waa markaasi anigoo ah dhakhtaradii iyo adigoo bukaankii aabihiis ah. Intaas kaliya xiriir noocaas ayaa naga dhexanayay bay dhahaysaa. Wuxuu dhahay waan ogolahay, shuruudaadii soo bax. Sidii buu ku soo celinayaan. Markuu soo celiyo, saay waxay durba bilaabaysaa inay daaweyso Finaayig, isagoo aad ugu qanacsan misena ku faraxsan. Wuxuu kaloo weydiinayaa Saafi, Saafina way la kulmaysaa. Waxay u rajeynaysaa caafimaad buuxa iyo degdeg inuu markaani sariirta kaga soo kaco. Isagana aad buu u farxaya, daawadii markan waa qaadanaya. Firaadna waa qiiroonaya, isagoo Baaqi raali garaynaya. Wuxuu dhahaya waad iga saxsaneyd, mar hore ayaa loo baahnaa inaan hadalkaada maqlo oo saay aan u ogolaado inay wiilkan daaweyso. Bal fiiri siduu hadeer u caafimaadayo, durba daawadii wuu ogolaaday. Ashwani aad uguma qanacsano falalkan la sameynayo in saay loo ogolaaday inay markaasi wiilka daaweyso, laakiin danta ayaa keentay. Reer Jafan meel xaflad bay wada joogaan. Waxaa kaloo la diyaarinayaa oo barnaamij ah in sanad guuradii arooska Firaad iyo Baaqi ayaa soo dhow. Barnaamij caynkaasna waa la diyaarinayaa. Waxaa kaloo jiro barnaamij looga qayb galayo in Bafani ay meesha khudbad ka jeedinayso, iyada ayaa qoys ahaan la doortay. Meesha ayay khudbad ka jeedinaysaa iyadoo haweenkii iyo waxyaabo noocaas ka hadlayso. Ugu horeyna waxay ka hadlaysaa ahmiyadda qoyskeeda oo ku leeyahay iyada dhankeeda.
waxaana leedahay wax walba nolosheeda waxa iigu muhiimsan waxay tahay waa qoyskayga. Iyadoo meeshii ka qudbaynayso, meeshii Saayi ayaa imaanayso, sababtoo Saayi halkay degaliid ayay ka fikiraysaa. Waxaa markan uu finaayig dhahayaa waa inaad anaga nala degtaan. Marka hore inteed degaysaan buu weydiiyey. Ashwani waxay ka hortagaysaa in Saayi ay guriga kusoo noqoto, iyadii gabadheedana halkaas ay soo degaan. Baaqi way ogashahay in Saayi ay halkaas ay soo degto, laakiin Ashwani iyo Firaad iyo ma ogola. Arrinkaasi ay kaga hortagaan. Saayi waxay dhahaysaa garab idinkagama baahni, aniga ayaa guri raadsanaya. Wax walbana anigana waan isku filanahay. Usha mooshina way u sheegtay. Saayi waxay kaloo markaa masiiraysaa Firaad oo hab siinaya baaqi. Usha mooshina way arkaysaa. Saayina waxay leedahay waxaas ma jiraan, way isdiidsiinaysaa in ay arrinkaasi ka masiirtay ama ka xumaatay, laakiin dhab ahaan way dhibsatay arrinkaasi. Markaan Saayi waxay leedahay ninkan Firaad aniga mar hore ayaan iska iloobay. Waxaan kaloo dareensiinayaa anigii gabadhaydaba inaan markaas isku filannahay. Markaan finaayig daaweeyo, halkan waan ka tegi doonaa. Anii adiga ayaa gabadhan yar ay Saafi ah korinayno oo barbaarinayno. Sidaas ayay Saayi tiri. Waxayna ku tiri usha mooshi. Saayi guri bay raadsanaysaa. Waxaa loo sheegayaa haweeney inay guri hayso, laakiin haweeneydaasina waa Farshaa baa lagu magacaabaa. Waxay joogtaa xafladda Bafani iyo qoyska kale ay joogaan. Marka halkaas ayay soo aadaysaa si haweeneydaas ay ula kulanto misana gurigii uga dhamaysato. Halkaas laakiin waxay kula kulmaysaa Bafani. Iyadii Bafani ayaa waji ka waji isku arkayaan. Halkaasi ayay qoyskii oo dhan kula kulmaysaa xubnihii kale. Karishma ayaa durba waxay bilaabaysaa inay Saayi weerarto, hadallana ku dururto. Waxaana meesha ka shaacinaysaa inay markaasay Firaad xaaskiisii hore ay ahayd. Dadkii oo dhan meesha ayay ka ogaanayaan. Saayi meesha waxay u timid inay guri hesho. Bafani waxay aad iyo aad ugu qaylinaysaa Saayi, oo waxay isku dayaysaa inay Saayi oo dhan ay inkirto. Dhinaca kaleeta Muhiid baa u imaanaya. Firaad iyo baaqi isbitaalkii joogaan, kuwaasoo xilligaasi waqti wacan wada qaadanayeen. Waxaana Firaad baaqi kaga mahadcelinayay waxyaabaha ay samaysay iyo qaladkiisii siday u tustay. Muhiid markuu imaado wuxuu u sheegayaa dhibka jira. Bafani inay caraysan tahay. Gurigii buu u dirayaa. Waxaana dhahayaa aniga ayaa finaayig la joogayo. Baaqi iyo Firaad way soo baxeen. Maxaa dhici doona? Halkaas ayay xalqadii maanta ku dhamaatay. Maanta Axad xitaa xalqada cusub oo la soo bandhigay. Haddaba dhacdooyin xiisale ayaa dambeeyaan. Goosgoosyo kala nooc ayaana la tusay. Goosgoosyadaas waxaa ka mid ah in markaasi Firaad uu gabadhan Saayi ah inuu ka masiirsiiyo uu doonayo. Markuu iida arko ayuuba katiin qoorta uga xiraya gabadhii baaqi ahayd, isagoo ugu hambaliyanayo sanad guurida arooskooda. Saayina faraanti bay doonaysaa inay iibiso. Waa faraanti qadiimi ah. Faraantigii qiimo fiican way ku heli weysay. Meeshii bay kaga tegaysaa. Waxaana leedahay faraantigan hadda wax micno ah maba lahan. Faraantigii baaqi baa arkayso. Talow faraantigaasi markii oo Firaad uu u gelinayay Saayi ba. Faraantigaas sir ma ku doogan oo baaqi wax kale miyay ogaan doontaan. Tusaale ahaan in markaasi Saayi nin kaleeto uusan guursanin, gabadhanna ee Firaad u dhashay. Arrimo caynkaas miyay gadaal ka ogaan doontaan. Goosgoosyada kalena la tusay waxaa ka mid ah gabadhii yareyd Saafi ahayd oo soo wacayso hooydeed. Markaas ayay qaylinaysaa Saafi. Saayi way naxaysaa. Waxayna is leedahay gabadhada talow maxaa ku dhacay. Way naxaysaa, way soo ordaysaa. Gurigii reer Jafan bay imaanaysaa. Markii halkaasi timaado waxay arkaysaa halkii oo xaflad ka dhacayso. Dadkii oo dhan isku wada imaadeen. Waxaana loo dabaaldegayaa sanad guurida arooska Firaad iyo baaqi. Gabadhii Saafi ahayd iyo wiilkii finaayig ahana way wada cayaarayeen. Dhanka Saayi ayay soo aadayaan iyadoo caraysan misana aad iyo aad uga xumaatay kana masiirtay waxa Firaad iyo baaqi meeshii ka sameynayeen iyo xafladda loo dhigayo. Saayi maxay sameyn doontaa? Meesha dagaal miyay ka kicin doontaa? Mise gabadheed intay soo wadataa ayay goobta ka tegaysaa? Dabcan Firaad iyo baaqina way arkeen Saayi inay timid. Waxaad moodaaba Firaad inuu doonayay inuu gabadhan Saayi ah ka masiirsiiyo. Dhacdooyinka kale ayaan ku arkaynaa waxa dhici doona. Meeshaas ayay ku dhamaadeen xalqadihii isbuucii lasoo dhaafay oo dhan. Xalqadahoodii ayaan soo koobnay oo muuqaalkani aan ku sharaxnay. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.